وبلونا واي محمد جرى صورو صاحب واحد هاي قدوميها دلنيرة الدريال بشو وطبعا أوفر فرعون دتك الصوماليات التباريسان طبعا وانوجا هي دوك حما هيسان لكن دتك الصوماليات أو حيستا أيا ولا هذا الشان سيدو كسو قاري دواقن كيم محمد نور كسونا حارة عبد الرزاق هذا ما سنتهي وان كل وقت في قرنك كدريال بشهان مرة والبانكا وحنو دتك الصوماليات oo aan wax beeshan ayaan u istaagnaa dadkeena caawino iyo waxa sameynaa dadka Ilaahay maanta wax siina isku xirnoo kaliya kiiskan Maxamed Nuur wuxuu ku soo gaaray baraha bulshada inta badan waxa nooga imaadaan bukaanada dadka dhibaataysan bukaanada baraha bulshada waxaan aragnay warbaahinta TV qaranka oo qaran lagu sii ooda ugu hore Cabdirasaaq oo aad tabanayso Maxamed Nuur xaaladiisa dad ayaa nagu page-ka nagu mishin garay dad qaarna page-ka daryeer bishan naga soo xiriiray dad qaarna si gaar ah naga soo xiriireen kadib waxaan sameeyay in xiriir aan la sameeyay ahayd isbitaalada sida qaliimadii iyo kala fircoon in aan bukaanadaas aan ku xiriirno Dr. Ahmed way Ahmed Dr. Ahmed Bashir ma idinka la soo xiriiray oo u sheegay dabadna uu idinka aqbalay si isaga la soo xiriiray Dr. Ahmed Bashir anaga la xiriirnay oo aan la wadaagay maadaama bukaanada aan helnay xogta aan helnay waxaan jecelnahay in isbitaalada dadka ugu gudbin ee wax naga qabtaan Dr. Ahmed Bashir qal Allah siiyo ma ahan markuu guurayso Dr. Maxamed Nuur inuu naga caawiyo bukaano badan jirkiisaas oo kale inaan ku soo xirno marka maamulka guud iyo isbitaalka waa la soo xiriirnay ayaga qabteen shaqada wanaaggaas aragteen iyo qiimaha badan aniga kaliya isku xiray kaliya aan shaqadu waxa qabto waa isbitaalka Shaafi qalinkuna waxa filnaa Dr. Ahmed Bashir ilaa ajir xasan ka sidaas waan naga aqbaleen maadaama dad danyar aan u istaagnay qof walbana ay garanayaan shaqada aan hayn sidaas nagu aaminin in qofka danyar aan wadna inay caawiyaan way دكتور marka isbitaal Shaafi keenteen Dr. Ahmed alla soo xiriirteen uu idinka aqbalay bukaankii waa keenteen waxa xigay bukaanka baaritaano badan loo sameeyay kadib doctorka wuxuu noo diray dhacaan in laga qaado si xogta loo soo ogaado xarunta waxaan geynay sagalan geynay oo dhacaan laga qaado horta xarunta sagal qeyr Allah siiyo markastana dadka danyarta aan u keenay xaruntoona aad ay nooga caabisay dhacaankaas laga qaaday dhacaankaasna jawaab markay soo baxday Dr. Ahmed Bashir la xiriiray waxa soo baxday in bukaankan qalinkiisa la sameyn karo oo aan browada wax weyn aan ahayn oo la qali karo aan kansar ahayn sidaas aan dhacaankaas xarunta ku soo gudbinay isbitaalka Shaafi aan kan kadib Ahmed Bashir aan u keenay way ugu dambeyntii Maxamedow waxaad tihiin daryeel bulsho waa urur dhalinyaro oo dabcan u dhaqaaqa dadka Soomaaliyeed ee aan waxba haysan si ay ula hadashaan dadka wax haystay haday yihiin dhaqaatiirtii haday yihiin ganacsatada ay yihiin intii tala bulshada ururkan horta 2015 ka aasaasanay 8 sano jira ururka wuxuu ka howlgalaa dhammaan dalka Soomaaliya ilaa dhammaan gobolada waxna saacidna waa bulshada Soomaaliyeed isbitaalada haddii ay xaalad waxbarashada jaamacadaha haddii xaalad caafimaad dhan walba waxaan naga saaciday isbitaalada maanta waxaan garab naga siinay waxa waa bulshada Soomaaliyeed hay'adna ma ahan dawladna ma ahan cid oo garab naga siinay ma ahan kaliya anagu waxaan isku xiraanaa qofka lambarkiisa ugu qornaa balaas lambarka uu jigso aan ka saarnaa bukaanka marka caafimaad la siiyo oo si free loogu daaweeyo wuxuu u baahan yahay dad gobolada laga keenayo dad ehelkooda jooga dad ehelkooda ma joogo dadka ehelkooda aan u joogin aan lambarkooda ugu qornaa si bulshada Soomaaliyeed oo caawiyaan oo qotor yom ugu dhigtaan sidaas ayaan ku caawin haddii qofka caafimaad tigidkana waxaan naga caawiyaan shirkadaha Ilaahay ajir xasan ka siiyo tigidina ka bixiyaan anaga lacagna soo martay kaliya isku xiraanaan haddii tigid tahay shirkadaha bixin haddii caafimaad isbitaal bixin haddii waxbarashada waxa bixinaya jaamacadaha bixinayaan way ugu dambeyntii Dr. Ahmed Bashir ayaa garabkaaga fadhiya kiiska ugu dambeeyay ee qayradhaanta aan muujisay waa doctorka ka soo jawaabay ee qalinka uu sameeyay Maxamed Nuur fariinta aad halkan uga dirayso ama si maxaad u rajaynaysaa horta doctorka khayr Allah siiyo doctorka waxa waaye hadda ilaa gobol waxa tababar aan u joogo in kiis sidaan oo kale inaan la soo xiriiro aan dhahay kiiskan sidaan sameeyay heer inoo dhahay tigidkan aan ka bixinayo caafimaadkiisa aan ka faal qaadayo intaasna oo dareemi kartaa naxariis ilaa laga helaa doctorka ilaa khayr Allah siiyo Dr. Ahmed Bashir dad badan naga caawiyo si guudna maamulka isbitaalkana waa u mahadcelinayaa isbitaal Shaafi wuxuu ka mid yahay isbitaalka labaad oo mar walba dadka masaakiinta aan caawin oo garab nagu siiyo oo wax walba noo fududeeyo ayagana ajir xasan Allah ka siiyo Dr. Ahmed Bashir waxa leeyahay dhaqaatiirta kale
iyo dadka maanta ilaahay wax siiyey ama dadka ilaahay aqoonta wax siiyey inay bulshada ugu faa'iideeyaan aqoontooda sida Dr. Axmed kale ay ku daydaan qof walbana waxa ugu wanaagsan inuu aqoontiisa bulshada dib ugu celiyo oo dadka danyartana uu caawiyo aan qof walba ka codsanay bulshada Soomaaliyeed aad u maastaa masala adna aad u maastaa ajir xasan la ka siiyo